والرياضيين مسؤولينها في سراكيشة دون هيئة دون الدولة runtii ka socda dhammaantood hadday wasaaradda booliska hawada hadday tahay gacanta socdaalka hadday tahay wasaaradda maaliyadda hadday tahay maaragtay maxkamadda sare maaliyadda cashuuraha beriga dhammaanteed runtii aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waana ku faraxsanay idinkii mas-uuliyiintiiba runtii in aad soo ajiibteen waqti kooban idiin soo dirnayna aad runtii markiiba dadkii saxda ahaa ee hawsha ka faa'iidaysan lahaa aad keenteen ma ho keliya tababar waa aqoonsweydaas wax badan insha allahu tacaala waxaa doonaa labadeeda dhinac ama dhinacyada kala duwan dowladdu waa hal waax ama waa organisation kaliya waaxdaas ama organisationka ayaa qaybo kala duwan sii qayaataas oo wasaaradda saasa oran markaa intii shaqooyinka muhiimka ee dhammaanteen aynu wada hayno aynu u hayno markaynu hawshan gaalka ka hadlayno diblomaasiyiinta aynu ka hadlayno howlaha dhowrsanaanta aynu ka hadlayno habmaamuuska aynu ka hadlayno xiriirka caalamiga iyo keeda oo runtii aad wax badan runtii aad ka wada sheegsan doontaan maaragtay macalimiinta bixinaya oo runtii maxamed iyo xasanbay qayb weyn si fiican noo soo diyaariyeen kiisas badan oo dhacay aan rabno inaynu ku falanqayno waa ku mahadnaqayaa waxaynu ognahay iminka somaliland si rasmiya insha allahu tacala aan ka shaqeyna in aqoonsi caalamiya helo taasoo runtii mas-uuliyadada yeelan doonta si markaa aynu u wada shaqeyno waxaynu u baahan nahay waxyaabo badan oo dhinaciina soo mari kara dhinacan kale soo mari kara waag kasta ama wasaarad kasta tiraahdo talabkay wasaaraddaas sidaa waxooga dhowey inaan halkan wax isaga weyn dabeetana inagu hal ordana cilaaqaad dowle mar walba ka wada hadlayna in maaragtay u shaqeyno si gaara diblomaasiyiinta inala degan waxaan filayaa runtii wax badan baynu kala korsan doonaa mar haba waqti badan inaan naga lumiyo aad iyo aad baad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu